barasaabka gobolka Togdheer Xamse ayaa ka warbixiyay xaalad biyo la'aan soo food saartay deegaanada gobolka Togdheer xilli awaaro baahsan ay dhawaan sanadihii la soo dhaafay waana deegaanada ay aadka ugu weyn u saameeyaan awaaraha ka dhaca deegaanada Soomaaliland inta badan haddaba wariyaheena Saadam Maxamed Xasan Saadam Ilkaas ayaa inoo eegay qodobka warbixintan barasaabka gobolka Togdheer oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay xafiiskiisa magaalada Burco ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee gobolka waqti xaadirkan gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi waxa uu sheegay xaalad biyo la'aaneed ee ka jirta deegaano hoos yimaada gobolka Togdheer geesta kale gudoomiyuhu waxa uu dhaliilo u soo jeediyay hay'adaha kala duwan ee maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee ka howlgala gobolka Togdheer kuwaas oo ay ogeysiyeen xaaladda biyo la'aaneed ee ka jirta gobolka Togdheer balse ilaa hadda aanay ka jawaabin barasaabka ayaa fariimo u diray hay'adahaasi waxaanu yiri ugu yeedhay saxaafadda inaan ka iclaamino runtii xaalad biyo la'aaneed oo ka jirta gobolka Togdheer boqolkiiba waxaan oran karaa 60 ayaa gobolka waxa ka jirta biyo la'aan baahsan waxa jirtay 12 bishii January inaan halkan isugu yeedhnay dhammaan hay'adaha ka howlgala gobolka Togdheer anagoo la socodsiinay xaaladda biyo la'aanta ee soo food saartay meelo badan oo kamid ah gobolka Togdheer oo runtii xaalad adag oo biyo la'aan ay jirto ilaa waqtiga ilaa maalinka maanta runtii wax jawaaba oo aan ka hayno hay'adihii ma jiraan mana garanayno de sababta maadaama wax weeyaan aan soo gudbinay baahidu waqtiga ay taagnay waxaan jeclaan lahayn in de si degdeg ah baahidaasi looga soo jawaabo runtii taas wax weeyaan waa dhaliil aan u soo jeedinayo runtii hay'adaha ka howlgala gobolka Togdheer oo aan sidii aan maartay loogu talagalay uga soo jawaabin mar labaad waxaan jecelahay inaan ku celiyo baaq runtii qeyladaan ah oo biyo la'aantii waqtiga aan iclaaminay ee aan sheegnay hay'adaha isugu yeedhnay de ay maanta marayso waqtiga waxa ka soo wareegay muddo de 2 bilood oo dhow ah maalinta ka sii dambeysana xaaladda biyo la'aantu way ka sii daraysaa sidaa daraadeed cid kasta oo daneynaysa hay'adaha caalamiga iyo maartay NGO-yada maxalliga ah waxaan ugu baaqaynaa in la soo gaaro biyo degdeg dadka runtii anagu waxaan qaban karaynay anagoo iskaashanayna dawladda hoose oo laba booyad baan leenahay oo mid wasaaradda macdanta ay leedahay midna dawladda hoose wixii aanu de ku sii tuurtuuri karaynay runtii dadka waa ku sii tuurtuuray welina waan wadnaa sidaa daraadeed xaaladaas waa xaalad u baahan in si degdeg wax looga qabto looma baahna hadhow marka roobku de Ilaahay raxmadiisa shubay ay dadku biyaha helaan inay hay'adu noo yimaadaan in dhahaan waxaanu sinaa anagoo ka jawaabayna baaqi biyo dhaanka ahaa ee dawladdu ay ku dhawaaqday ayaanu ka jawaabayna intii la oran lahaa maanta ayay baahidii taalaa marka waxa weeyaan waxaan ku qiimeyn doonaa hay'adaha ka howlgala gobolka iyo hay'adaha kaleba siday gurmadka ugu soo fidiyaan xaaladda ka taagan biyo la'aanta gobolka taagan waxaan ku la wadaagayaa in xaaladaas ay runtii jirto oo haddii ay ku sii socoto sidan oo wax weyn de roobku dii waayo de waxa imanaysa abaar la mid ah tii 2017 markii koobaad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa raxmad khayr qabta inuu Ilaahay inoo shubo baryada Ilaahay baa lagu baahi baxaa mar labaadkana wax weyn inay bulshadu isha ku hayaan de xaalada soo food saartay gobolka gudoomiyuhu waxa uu baaq u diray bulshada qaybaheeda kala duwan in la isbarbar taago isla markaana biyo la gaarsiiyo deegaanadaasi ay soo food saartay biyo la'aantu waa Saadam Maxamed Xasan CNA TV Burco.